Ma dareentay mararka qaar qalbi culays, walwal badan ama murugo aan sabab lahayn? Dad badan maanta waxay raadinayaan daawo, qaarkood waxay raadinayaan lacag, qaarkoodna madadaalo. Laakiin waxaa jira xaqiiqo ay dad badan ilaabaan. Qalbiga bini'aadamka wuxuu leeyahay daawo gaar ah. Daawadaasna waa wax Allah na baray subxaanahu wa tacaala. Maanta waxaan ka hadli doonaa sida qalbiga loo daaweeyo. Qalbiga waa xarunta nolosha qofka. Haddii qalbigaagu fiicnaado, noloshaadu way fiicnaanaysaa. Haddii qalbigaaga xumaado, wax kasta oo kale ma hagaagayaan. Dad badan waxay isku dayaan inay hagaajiyaan nolosha dibadda, laakiin waxay ilaabaan inay hagaajiyaan qalbigooda gudaha. Taasi waa sababta mararka qaar qofka uu haysto wax kasta, laakiin haddana uu dareemo walwal iyo murugo. Culayska ugu badanna qalbiga uu naga saaran yahay, waana meesha ugu badan howlaheena adduun iyo aakhiro aan ku qabsan. Sababaha qalbiga culays u yahay, waxaa jira waxyaabo badan oo qalbiga culays saaraya. Mid ka mid ah waa dembiyada. Marka qofku dembi badan sameeyo, qalbigu wuxuu dareemaa culays. Sabab kale waa walwalka nolosha naga haysto. Dadka qaar waxay aad uga fikiraan mustaqbalka, lacagta iyo dhibaatooyinka kale, oo waxaan waqtigeena gelinaa inaan ka fikirno, ka walwalno wax aan la gaarin. Sidoo kale waxaan ka walwalnaa wixii lasoo dhaafay. Marmarka dembiyadana sidoo kale waxay nagu yihiin waxyaalaha aadka noogu badan oo na baabiinaya, nolosheenana dib u dhigaya. Laakiin waxay ilaabaan in wax kasta ay gacanta Allah subxaanahu wa tacaala ku jiraan. Sababta kale waa in qalbigu ka fogaado xuska Allah subxaanahu wa tacaala. Qalbigu sida jirka ayuu yahay. Jirka wuxuu u baahan yahay cunto, wuxuu u baahan yahay in la daryeelo, wuxuu u baahan yahay in caafimaadkiisa laga shaqeeyo, wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo. Sidaas la mid ah, qalbigu wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo, wuxuu u baahan yahay iimaan, wuxuu u baahan yahay in Allah subxaanahu wa tacaala lagu xiro, la ilaaliyo. Daawada ugu weyn ee qalbiga waa xuska Allah subxaanahu wa tacaala. Markasta aad Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran tahay oo aad xusaysid oo aad mar walba qalbigaaga uu ku jiro Allah, waxaad haysataa daawada ugu weyn ee qalbiga. Markaad tiraahdo subxaan Allah, alxamdulilah, Allahu akbar, qalbiga si tartiib ayuu u degaya. Xuska Allah wuxuu ka saarayaa qalbiga walwalka iyo murugada. Mararka qaar qofku wuxuu isku dayaa wax kasta si uu u helo farxad, laakiin farxadda dhabta ah waxay ku jirtaa xiriirka qofka iyo Allah subxaanahu wa tacaala aad la leedahay. Mar walba aan Allah subxaanahu wa tacaala aan xusno, mar walba aan qalbigeena Allah ku xirno, nolosheena way hagaagaysaa. Mar haddii qalbigaagu hagaago, dibaddana sidoo kale way hagaagaysaa, oo wax walbaad u baahatid way kuu sahlanaanaysaa. Culays kasta aad dareemaysay meesha ayuu ka baxayaa. Daawada koowaad waa xuska rabbigeen subxaanahu wa tacaala, inaynu badino, xoojino. Daawada labaad, qur-aanka. Akhrinta qur-aanka ma ahan wax caadi ah, waa daawada qalbiga. Markaad akhrido qur-aan, qalbigu wuxuu helaa iftiin, wuxuu dareemaa deganaansho, wuxuu helaa wanaag, wuxuu helaa wax uu ku nafiso. Dad badan waxay sheegaan in marka ay akhriyaan qur-aanka ay dareemaan deganaansho aan caadi ahayn. Taasi waa sababta oo qur-aanka u yahay wax nooleeya qalbiga. Waxyaalaha soo dila sida dembiyada, walwalka, waxa meesha ka saari karo markaad Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran tahay, aad qur-aanna aad akhrisid, qalbigii dhintay ayaa soo noolaanaya, iimaankiisi ayaa dib u noolaanaya. Waa daawada ugu muhiimsan ay ka mid tahay qur-aanka. Daawada saddexaad, ducada. Daawada kale ee qalbigu waa ducada. Markaad gacmaha kor u qaado oo Allah subxaanahu wa tacaala la hadasho, qalbigaaga wuxuu dareemaa nasasho, sababtoo ah waxaad ogtahay in Allah subxaanahu wa tacaala ku maqlay. Mararka qaar qofku wuxuu u sheegaa dadka dhibaatooyinkiisa, laakiin waxaa ka muhiimsan inaad Allah subxaanahu wa tacaala u sheegato dhibaatadaada. bini'aadamka haddaad dhibaato u sheegatid waad ku daalaysaa. Waxaa laga yaabaa inuu ku dhibsado, waxaa laga yaabaa inuu ku naco, laakiin markasta aad Allah subxaanahu wa tacaala aad bariso, wuu kusii jeclaanaya. Markasta aad Allah subxaanahu wa tacaala dhibaatadaad u sheegato, faraji aadan filayn ayuu kuu furayaa. Ducada waa hubka qofka muslimka oo haysto. Haddii meel kaasoo xiranto, Allah subxaanahu wa tacaala weydiiso inuu kuu furo. Wax walbo Ilaah gacantiisa ayay ku jiraan. Ducadana waa waxa qalbigeena iyo nolosheena hagaajinaya. Mar walba aan Allah subxaanahu wa tacaala ku xiranna, mar walba aan Allah subxaanahu wa tacaala baryayno, waa mar kastoo aan haysano nolol degan, xasilooni ku jirto, farxad aan dareemayno. Allah subxaanahu wa tacaala waa mid ka awooda inuu dhibaatada kaa qaado, walwalka kaa bixiyo, murugada kaa saaro, dembiyadaada kuu cafiyo, noloshaada kuu hagaajiyo. Allah subxaanahu wa tacaala aan barino, mar walbo aan joogteyno, nolosheenan waxaa hagaajinayo Allah subxaanahu wa tacaala. Ducadu waa daawada saddexaad
ee qalbiga. Haddii qalbigaaga culus yahay maanta, xusuusnow 3 daawo: xuska Allah subxaanahu wa tacaala, qur'aanka kariimka, iyo ducada. Haddii aad 3dan noloshaada ka dhigato caado, qalbigaagu si tartiib ah ayuu u degi doonaa. Sababtoo ah qalbiga dhabta ah wuxuu ku degaa marka aad Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran tahay. Haddii aad muuqaalkan iyo mid lamida aad ka heshay, muuqaalka like saar, kuna soo biir Mohan Usman. Waa halka aan nolosheena iimaankeeda aan kor ugu qaadno, aan ku bedelno nolosheena mideeda iyo dhammaanteena. Nolol iimaan leh ayaa dhinac walbo hagaajin karta. Culays kastoo na haystana wuu naga degayaa. Haddaynu dhalinyaro nahnay, maanta waxaan u baahannahay nolol iimaan leh si aan noloshan casriga ah aan ula jaan qaadno. Ku soo biir Mohan Usman. Mahadsanid.